maanta muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa shakhsiyaad la yaab leh intaan u gudagelin haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Tran Van He waa shakhsi ka soo jeeda dalka Vietnam. Waxaa loo aqoonsaday inuu yahay ninka ugu timaha dheer dunida. Miisaanka tintiisa waa 10 kilogram. Waxa uuna sheegay in uusan aadin goobaha tinta lagu jaro muddo dhan 50 sano. Sababta uusan u aadinna waxa uu ku sheegay marka uu tinta iska jaro in uu xanuunsanayo. Rolf Boklos shakhsigan waxa uu ka soo jeedaa dalka Jarmalka, waana ninka kaliya ee jirkiisu uu leeyahay dulduleelo aad u badan. Waxaana aqoonsaday Guinness World Records in uu jirkiisa dulduleeliyo. Waxa uu bilaabay isagoo jira 11 sano. Hadda jirkiisa waxa uu leeyahay dulduleelo aad u badan. Qaarkood waxa uu geliyay biro yaryar, inta badanna waxa ay ku yaalaan dulduleeladaas wajigiisa. Tim Gariland waxa uu ka soo jeedaa dalka Mareykanka, waana shakhsi la yaab leh. Waxaanuna ma dareemayo marka uu jirkiisa bir ku duleelinayo. Sidoo kale waxa uu awood u leeyahay in uu adkaysto kuleylka. Waxa uu afkiisa geliyay bir aad loo kululeeyay. Wax xanuun ah ama kuleyl ma uusan dareemin. Gary Turner waxa uu ku dhashay Ingilterra, waana shakhsi uu ka soocan yahay maqaarkiisa jirka. Waxaadna u malaynaysaa in la dhexgeliyay maqaarka marka uu gacanta ku qabto waa mid ka soocmaya. Waxa uuna awoodaa maqaarka dhuuntiisa in uu soo jiido afkiisa uu ku daboolo. Waxaana ku dhacay xanuun ku sababay maqaarkiisa in uu sidaa noqdo. Mustafa Ismaaciil markii murqaha labada gacmood hore iyo gadaal u weeyeen waxa uu muuqanayaa qofkaas mid ka xanuunsanaya murqaha. Laakiin shakhsigan murqihiisa ayaa sidaa noqday kadib markii uu cirbada ku muday si ay u noqdaan kuwa waaweyn. Laakiin arrin wanaagsan ma ahan. Waxaa laga yaabaa in ay dhibaato xoogan kaaga timaado. Mustafa waxa uu ka soo jeedaa dalka Masar. Waxa uu noqday shakhsiga ugu murqaha weyn dunida. Michael Lotido shakhsigan waxa uu ka soo jeedaa dalka Faransiiska. Waxaana lagu tilmaamaa in uu yahay shakhsiga cuna wax waliba. Awood waxa uu leeyahay in uu calooshiisa geeyo biraha iyo caagadaha. Marar badanna waxa la duubay isagoo masaamiir laqlaqaya. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Hana hilmaamin in aad booqato channelka kale Maanta Technology.